بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير أنا هنقايا وزيرك وزارة هرمونة عافماتك دلك سوماليلاند runtii waa go'aamo dhaxal gala sida darteed maanta taariikhdu tahay 22 bishii saddexaad 2021 kuna beegan 8 bishii Shacbaan 1442 guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo maareynta xanuunka COVID-19 waxay soo saareen go'aamo muhiim ah oo laga hortagayo faafitaanka wajiga cusub ee xanuunka COVID-19 isla markaana lagu sugayo badqabka iyo fayadhowrka bulshada Soomaaliland go'aamaasi fulintoodu iyo hogaansanaantooduba waa waajib bulshada Soomaaliland waa ku waajib bulshada Soomaaliland cid kasta oo ay khuseysaba nuxurka go'aamada guddiga qaran ee COVID-19 qodobka koobaad xidhashada afsaabka ama gafuur xidhka hadba sida loo yaqaano face mask luqadda ajnabiga si looga hortago faafitaanka xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda xidhashada afsaabku cid walba waa ku waajib meel kasta iyo goob kasta oo ay bulshada ku nool yihiin dhammaan xafiisyada dawladda goobaha ganacsiga heer kasta suuqyada ganacsiga ee laga adeegto oo heer kasta leh sariibadaha goobaha lagu iibiyo caanaha hoteelada iyo makhaayadaha iskuulada dawladda ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay jaamacadaha masaajidada malcaamadaha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay basaska gobolada iyo kuwa magaaladaba tagaasida dhaweeye xafiisyada shirkadaha ganacsiga baananka iyo adeegyada iyo wixii la mid ah baananka iyo adeegyada lacagta dhammaan goobaha qurxinta haweenka koofeerada meelaha lagu xinaysto iyo wixii la mid ah xidhashada afsaabku waa ku waajib cid kasta oo u hogaansami weyda xidhashada afsaabka goobaha ay bulshadu ku kulanto waxa loo aqoonsanayaa inuu yahay qof dhiirigelinaya faafitaanka cudurka isla markaana ay u muuqdo inuu yahay qof u cadawaa bulshada Soomaaliland laba kala fogaanshaha bulshada si looga hortago isla markaana loo yareeyo faafidda wajiga cusub ee xanuunka COVID-19 bulshada dhexdeeda dhammaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagu wargelinayaa in ay dhowraan kala fogaanshaha social distancing waxa loo yaqaan afka qalaad ugu yaraan 2 mitir goobaha ay bulshadu ku kulanto oo aanay tahay waajib qof walba saaran in la fuliyo oo loo hogaansamo dhammaan xafiisyada dawladda goobaha ganacsiga heer kasta suuqyada ganacsiga ee laga adeegto heer kasta sariibadaha goobaha lagu iibiyo caanaha hoteelada makhaayadaha iskuulada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay jaamacadaha masaajidada malcaamadaha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka basaska gobolada kala baxa tagaasida dhaweeye xafiisyada shirkadaha ganacsiga baananka iyo adeegyada lacagta dhammaan goobaha qurxinta koofeerada meelaha lagu xinaysto waa ku waajib kala fogaanshaha iyo afsaabkuba cid kasta oo hogaansami weyda kala fogaanshaha waxay bulshadu waxa loo aqoonsanayaa inay tahay cid dhiirigelinaysa faafitaanka cudurka oo aan bannaanayn saddex faraxalka iyo jeermis dilaha aan loo yaqaano hand sanitizers si looga hortago faafinta ama faafitaanka xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda faraxalka iyo jeermis diluhu waa waajib meel kasta meher kasta iyo goob kasta oo ay bulshadu ku nooshahay dhammaan xafiisyada dawladda goobaha ganacsiga heer kasta suuqyada ganacsiga ee laga adeegto heer kasta tahay sariibadaha goobaha lagu iibiyo caanaha hoteelada iyo makhaayadaha iskuulada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay jaamacadaha masaajidada malcaamadaha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka ah basaska gobolada kala goosha tagaasida dhaweeye xafiisyada shirkadaha ganacsiga baananka iyo adeegyada lacagta dhammaan goobaha qurxinta haweenka faraxalku iyo jeermis diluhu waa ku waajib cid kasta oo hogaansami weyda faraxalka iyo jeermis dilaha goobaha ay bulshada ku kulanto waxa loo aqoonsanayaa inuu yahay ama ay yihiin dad dhiirigelinaya
faafitaanka cudurka oo aan bannaanayn. 4 shuruudaha isu imaatinka bulshada Somaliland waxa ka reeban inay isugu yimaadaan kulamada bulshada sida shirarka, xafladaha, casuumadaha, ciyaaraha, ololaha musharaxiinta, shirarka beelaha, mafriisyada qaadka iyo wixii la mid ah haddii aan la buuxin shuruudaha hoos ku xusan. 1 xidhashada afsaabka. 2 kala fogaanshaha ugu yaraan 2 mitir. 3 faraxalka ama jeermisdilaha. 4 furitaanka daaqadaha iyo albaabada. cid kasta oo hoggaansami weyda go'aanka shuruudaha isu imaatinka bulshada waxay mudan doontaa ganax lacageed iyo waliba ciqaab xabsi. fulinta iyo dabagalka arrimahan waxaa loo xil saaray wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyeyaasha gobollada. 5 in laga bilaabo 24 bishan saddexaad ee 2021 oo ku beegan maalinta Arbacada ay dhammaanba xidhaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ilaa amar dambe amba xaaladda xanuunka ay isbedelayso. 6 in ay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidada. 7 inay bulshadu ku soo weyse qaataan amba ku soo weysaystaan guryahooda iyo meheradahooda. 7 in dadka waaweyn iyo dadka la nool xanuunada u gaarka ah ay ku tukadaan guryahooda. 8 amba 9 qofkii leh calaamado u eg ku hargabka aanu iman masaajidada kuna tukado oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda. 10 in imaamiyada masaajidada waxaan faraynaa imaamada masaajidadu inay ducada qunuuda salaadaha inoogu duceeyaan si Ilaahay inooga qaado dhibaatada xanuunkan. masaajidada u hoggaansami waaya go'aamada la xiriira masaajidada waxay mudan doonaan ganaax iyo waliba ciqaab haddii la yiraahdo. 6 garoomada kubadda, goobaha jimicsiga iyo meelaha ay carruurtu ku ciyaaraan si looga hortago faafitaanka wejiga cusub ee xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda laga bilaabo 24 bishan saddexaad 2021 oo ku beegan maalinta Arbacada. waxa gebi ahaanba la joojiyay dhammaanba ciyaaraha ay bulshadu isugu timaado sida kubadda cagta, kubadda kolayga, jimicsiga jimka, goobaha lagu ciyaaro kombiyuutarka jimka, goobaha ay carruurtu ku ciyaaraan iyo wixii la mid ah. cid kasta oo hoggaansami weyda go'aankan la xidhiidha arrimaha ciyaaraha iyo jimicsiga waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo waliba ciqaab. fulinta iyo dabagalka arrimahana waxa uu xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyeyaasha gobollada. ugu dambeyntii go'aamadan ay soo saareen guddida qaranka ee ka hortagga COVID-19 ee la xidhiidha ka hortagga iyo xakamaynta faafitaanka wejiga cusub ee xanuunkan COVID-19 waa awaamir xukuumi ah oo leh awood sharci iyo kuwo fulineed oo loo cuskan doono fulinta iyo meelmarinta go'aamada guddida. hirgelinta, hubinta iyo kormeerka go'aamada ay soo saareen guddida heer qaran ee maareynta COVID-19 waxa u xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyeyaasha gobollada. allah mahad leh guddida heer qaran ee ka hortagga iyo maareynta xanuunka COVID-19. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.